waxaa sharaf ii ah inaan maanta warkiina imaado oo idin kala hadlo dhowr arrimood oo aan u arko in ay muhiim yihiin. muddo dheer ayaan u soo shaqaynayay ummadda Soomaaliyeed ee aynu ka nahay. ayaa noqday markii ugu horreysay sarkaal ciidamada ka tirsan. haatana waxaynu ku jiraa 2008. muddada iyada anigu qaranka Soomaaliyeed baan u shaqaynayay, wax kala qaban mayn, hawl kale lama qabsan, iskay uma shaqaysan, wax kale runtii kama shaqay. 40 sano waqti laga joogaa siyaasadda soo galay awal sarkaal ciidan baan ahaa. ilaa waqtigaas siyaasadda ku jiray anigoo runtii ku dadaalay kulliyoon ummadda Soomaaliyeed inaan u shaqeeyo oo si daacadnimo ugu shaqeeyo oo aan intaan shaqayn karo isgarab taago si dhibaatada ay ku jirto ay uga baxdo. hayeeshee waxaan anigu ku dadaalayay runtii hawsheenu ku jiray inaynu ka mira dhalanno, inaynu ku guulaysano. haatanse meel baynu sogno. waxaan halgankaas ku mutaystay 12 sannadood iyo bar xabsi siyaasadeeda anigoo aan waxba geysan. waxaan ka qayb qaatay dhammaan shirarkii dib u heshiisiineed ee isdaba joogga ahaa ee Soomaaliya loo sameynayay. waxaan in badan xildhibaanadiina hortooda fadhiya kala qayb galay shirkii ugu dambeeyey oo lagu qabtay Kenya oo labada sano socday. halkaasna lagu soo dhisay dowladda federaalka ee ku meel gaarka. markaas oo aad idinku aqlabiyad buuxda igu doorateen xilka madaxweynenimada, waana idinka mahadcelinayaa inaad mas-uuliyadda saadeen oo aan muddo 4 sano iyo bilaa idinla shaqaynay. waxaan ku dadaalay sidii looga mira dhalin lahaa dib u heshiisiinta TFG lagu soo dhisay. waxaan dib u heshiisiintii ka bilaabay magaalada Muqdisho, dhex martay beelaha Soomaaliyeed oo dhan 2007 bishii Luulyo iyo Agost. waxaan bishii Janaayo 2007 dalka oo dhan ka xoraynay midowgii maxkamadaha iyo adeegsadii kale ee ladanka ah. waxaan bisha Janaayo 7 2007 ugu baaqay caalamka in ay gacan ka geystaan sidii loo dhammaystiri lahaa dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed. waxaan bishii Juulaay 2007 magaalada ku qabtay shirkii dib u heshiisiinta 2006 qof isugu yimaadeen aan hore u soo sheegay. waxaan bishii November 2007 anoo codsanaya shirkii dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee Muqdisho ka dhacay, waxaan runtii magacaabay ra'iisul wasaare iyo 9 wasiir oo aan ka tirsanayn baarlamaanka. waayo waxaan u arkay wax lagama maarmaan ah in baarlamaanka iyo shacabkuwa xukunka ka wada hayba. markii haddaba aan dareemay in dadaalkaas oo la sameeyey ay caqabado ka hor yimaadeen, aniga igu muuqda inay culus yihiin oo weli iyo dibadba leh. markii aan arkay in axdigii lagu heshiiyey la baalmaray oo runtii aad moodo in ogaan loo yeelay, markii aan arkay in beesha caalamku taageeradii ayna
نوبل الغاضي مسين وسيدي لبي ونوتر سواتي كنا إنه صدق سيكون لنا مركي عام يغني صدي إنتي من الشيسين في وأفضل وأنا إذن كرياني كتوري وحش الله كلهين markay ii caddaatay in ciidamadii qaranka cunto iyo bunno loo waayay oo ay darxumo u kala tageen markii ay caddaatay haddana in waddanka balankiisii kooxa xag jira ay gacanta ku dhigeen awoodan ku xoraynana aan u weynay wadanayaal iyo marwooyin si aan horay hortiiba idinku ballanqaaday maalintii la idaarinayay oo ahayd 14 Oktoobar 2004 oo ah maalintii la idaariyay xilka madaxweynenimada waxaan badaygii ku iri maalintaas saddex arrimood bay mid noqon doontaa xilkaadii dhiibteen intaan hayo in aan ku guulaysano oo waajibkeena fulino بل أنا واجب كي يغفرنا إياه أن كبيري إلا أخرج ما وحول بكل إليه إياه هدان حوش والوايو حلكي بشارتين إلى يسر عليه إلا أنا المبو من إليك إيد وفي حاكم صفري على عنه وحكمنا ويلي نمر من هذا ممرض ولما يالي مروين وحان انتاسل فيها القبلي صوماليا وحصلون النظرة قال النمالي من حفظاني دي من النمالي وصول نغطة كودا هميسا أدام دمقراطية ودورشوية تسبية بالكردسان هذي مغطي وحاصل دميوين هذا السور الجلي وحان بقان صوي خلقي عبدي دورتين 7 أكتوبر لوقم إيا أقبتي إلى إليس العليو والغدي صحيحي وسلاة كبار انتهانا قلتنا وحنقول إياه بدونيها بارلمانكا وأيو دستورهان حديرة دستور خطير ويحشمين أيو وقال إياه وينو عدو صورت وحي رطانه وتيسوال كتبه خيككم ميقارها وحلو إياه بدونيها بارلمانكا وأرين دستوريا أرين دستور خمالة شبين هذا لما تشبين يتراه ويحمل بدونيها بارلمانكا وهاكن قرب كي يتالن فهو الغدر أولي ليا حيلكينا كوريشي وانا مع السلامين يا وانا يرد على البورك لي فضلا وحنرسل ليا إلى مدودان ودلال في سداية كبيسان وسرهان وشغيسان سيدي الصوماليو مرحمة الله قد كسرن تاوغا هذا